السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عروسة بلادك براتين قرحين تاروستا ديارين تاروستا ما انتو حندونا هكا ينادي كسر بندقنا صدح قاب وضو حتى ينكرتو ميلها مدمدو حتى نقطة سحلكا حكا هوستي الكيلوينكا ميل كستو جركا كمدو فنحيدا روغاكا meel kastoo taa jirkaaga ka madoodaaysa jirkaaga sugaakaysiin lahayd 3 qaab ayaan halkaan idinkula wadaagaynaa maanta. saa hore u ogeydayna 2 qaab hore ayaan idinkula wadaagnay 2 video hore qofkii aan hore usoo daawado 2 video hore ayay ahaayeen. waxaan idiin soo dhigi doonaa commentka ugu horeeya insha Allah 2 video baan idinku soo qori doonaa. hadda baan iska bilaabano khaldada ugu horeysan maanta ka bilaabano waxa weeyaan baking soda iyo liin dhanaan ayay ka kooban tahay labada shay oo kaliya. hata baking soda ay meel kasta oo ka helaysaa dukaamada xawaaslayaasha ay meel kasta oo ka helaysaa. baking soda ama bicarbonate sodium waxaad sameynaysaa in baad ku shubanaysaa malqacad baad ku shubaysaa malqacad baking soda ama intii adiga kugu filan waxay ku xiran tahay meelaha aad adigu marinaysa intii leeyihiin. waxaad ku daraysaa jeex liin dhanaan baking soda jabcadii aad ku shubatay sorry laano baking soda cadaan ayaan jabcadna ku shubay marka sorry hadaan si wacan idinku muuqanin liin dhanaanta imka ku daray saad arkaysaan liin dhanaanta ma ku daray uu soo fashfashlaynaya yani waxa dareemaysaa inuu de wax faxiso oo kala weeye camal ma ogtay marka uu soo faxaya kadib markii bood isku walaaqaysaa markaad isku walaaqdo sida kareem camal oo kale noqonaya markaasaad marinaysaa markuu qalala kadibna jeexii liin dhanaanta ahaayad haysatay ayaad ku xoqaysaa meelaha. khaldada labaad hadaba aynu u gudubno. khaldada labaad waxay ka kooban tahay sonkor iyo liin dhanaan iyo saliid saytuun. sonkorta malqacad sonkoraad soo qaadaysaa ama jabcad baad ku shubanaysaa amaba seesar yar waxaad ku daraysaa saliid saytuun iyo liin dhanaan. waxay ku cadaynaysaa meelaha madmadow oo dhan kilkilooyinka rooga suxullada fanaxyada jirkaaga oo dhan baad ku xoqaysaa laano xataa ururka amaba maaragtay waxyara finanka aad moodo oo kale boodiyaha kasoo baxa way kaa biinaysaa. inaga saliidii ku shubanay saliid saytuun baad ku darsanaysaa iyo sonkortii kadib shayga saddexaad ku kordhinaysaa xawaa liin dhanaantii baad ku daraysaa iyadna jeex liin dhanaan aad ku tuujinaysaa markaad saa isu gidisaysaa isu galaan laakiin stiil ay taagan tahay ay sonkortii taagan tahay ayaa waad soo qaadaysaa waxaad la gelaysaa xamaamka imika liin dhanaantii ku daray isku walaaqaysaa xamaamkaad la gelaysaa markaad isku wada walaaqdo waxaad ku xoqaysaa meel kastoo jirkaaga madow waxaad kale hadday badantoo kale waxaad jirkaaga oo dhan baad ku wada xoqi kartaa qacmaha lugaha yani qacmahaaga maanta dadku xoqdi waad dareemaysaa markiiba. way khaldadan dry skinkay qaataa yani hadday jirto xataa khaldad kale ood mariso meelaha madmadow oo ama saliid ka koobnaato ama noocyo kale ka koobnaato hadii ay jirto wax kale aad mariso tan waa inaad ka horeysiisaa tan daily waa inaad u isticmaashaa kaligeed way ku anfacaysaa. hadii aad waxyaabo kale aad haysataa ay jiraanna way ku caawinaysaa inay meeshii ku cadayso laano dry skinkii madowgii meeshu markii madowdahay shayga koobaad ugu horeeya waa in dry skinka laga qaado kadib marka dry skinka laga qaado ayay meeshii bilaabaysaa jirkii adkaay sare laga qaado ayay bilaabaysaa meeshii inay cadaato. marka aad bay wanaagsan tahay ka faa'iideysta baan leeyahay jirka oo dhan baad u isticmaali kartaa. khaldada saddexaad waxa weeyadna waa kurkum ama huruud. kurkumkaas limilis baad ka helaysaa. kurkumka waxaa jira mid la cuno oo yani jirka lagu darsado cuntada iyo wax jira mid la marsado waxaad oranaysaa kala marsada iyo iibiya kadibna bacayar baa lagu soo shubayaa iyagoo caagadina way jirtaa laakiin bacayar hadda xataa 0.5 kusoo shubato oo kaa badan waxaad samaysaa jeex liin dhanaan abaad soo qaadaysaa jeex liin dhanaanta abaad saa u gelinaysaa kadib markaad saa u gelisid ayaad ku
ku xoqaysaa meelaha madow oo dhan, meelaha kastoo madow, meel kastoo madow, jirkaaga meel kastoo madow.